magaalo walba waxay leedahay astaan caan ah oo lagu garto. magaalada Qabri Dahar astaanteedu waa gaawaha caanaha. saaka bal dhowr meelood baynu tegaynaa. magaalada Qabri Dahar waynu dhex mari oo magaalada gudaheeda waynu dhex mari doonaa insha Allah. marka u dambeysana waxaynu kusoo gabagabayn doonaa bal sayladda airportka laftirkiisa isagana waynu tegi doonaa insha Allah haddii Ilaahay yidhaahdo. waa socod wanaagsan. halkan waa bartamaha magaalada Qabri Dahar. magaalada Qabri Dahar kolkaad joogto bahashan bajaajta aad ugu badan sida baryahan dambe aad soo badatay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خياري ميل walba adduunka ka joogtaan iyo si walba aad noola socotaan soo dhawaada. saaka waxaanu joognaa sayladda Qabri Dahar. halkan waxaa inooga warramaya sayladda Ibrahim Cabdullaahi wuxuu ku magac dheer yahay Ibrahim Gaab. Ibrahim soo daabal sayladda warkeeda. geela waa dhowr raqam weeyaan. geela awrta ah ee laboodka ee waaweyn baarqabyada madaxiisa u horeeyeen awrtan dhiga muuqato kala aan ahayn ka waaweyn 160 baan siinay maalin dhaweyd. 160,000 oo Ethiopian baan siinay iyo waliba waxyaabihii raac jiray oo kale. 160,000 markaa waxay noqonaysaa qiyaastii waxaa loo qaybinayaa 160,000 baa waxaa loo qaybinayaa 160 muuqdaan ama inaan ahayn way ka yiri dollar ahaan si loogu helo. kuwaniga hadda muuqdaan way ka yiri yihiin. sax waa ka waaweyn yihiin oo ma taagna. waan gartay 150 140 intaaba way isu daba taagan tahay awrta. waan gartay awrta waaweyn sidaas ay qiimaheedu u badan yahay. lacagtaasi waa lacag $1,000 hadda lacagta aad ii sheegtay 160,000 oo Ethiopian markii dollar ahaan loo bedelo awrta madaxeeda hore way waa $1,000 waa artiga ugu qaalisan awrta u qaalisan weeyaan ama baarqaba ama hilib way waaye. awrka kale ka hooseeya waa 150 ka ku xiga waa 140 meelaha weeyaan. waan gartay qaar 130 waad arkaysaa laakiin waa dhacaanka awrta ay u kala badan tahay. waaye geela dhadiga madaxiisu 110 buu marayaa qaalmaha shan jirka weeyaan hadda la abaahayahay 110 way. waa gartay waxaa raacaya iyagana waxyaabihii raaci jiray baa raacaya 90 baad arkay oo 80 baad arkay oo waxaad arkaysaa 100 baad arkay oo geelu qaarba qayb weeyaan. waayahay 110 kaas markaa 110,000 iyagu waa $700 oo dollar weeye wax yar baa ka dhiman 15 waa qaalinta shan jirka abaha galka weeyaan. qaalintaas $700 wax yar baa ka dhiman waa $600 oo dollar $687 weeye. waa qaalinta shan jirka ee qoodha leh ee bidhaanta leh weeyaan. hore xusha ee hore weeyaan 110 iyo 4 bay noqonaysaa. waaye qaalinta ku xigta waxay noqonaysaa 190 hasha saddex jirku waa ilaa 70 ilaa 80 weey. waan gartay hasha saddex jirkuna qiimahaas maraysa. waxa la wixii qiimo ah ee uu sheegay Ibrahim waxaa loo qaybinayaa 160 si aad dollar ahaan ugu heshid. marka lacagtaasi waxay noqonaysaa $500 bay noqonaysaa. geela qurbacda hadda gacan kuma jirto. geela qaarinka ah ee 4 jirka 5 jirka hadda wax gacan oo ku jirta ay ma jirto. waaye laakiin hadda markii noogu dambeysay qaarinka 5 jirku 80 ilaa 70 buu ah. waaye qaarinka 2 jir dayroodku 50 baa af dheeriisu weeye waa laga gadgataa hadda Kudumbuur iyo Meeriyogana laga gadgataa. laakiin hadda wax gacan oo noogu jirta halkan ma jirto. hadda sayladda Qabri Dahar wax gacan oo ku jirta ma jirto. waan shaqada oo nala joogtaa ma jirto. artigan oo kale hadda imsa la siinaya artigani waa baarqab waana 8 jir walibana waxaa la leeyahay dayr baa u dheer raggii yaqaanay ama watay waxay leeyihiin 8 jir dayrood weeye
هذا وحوق أقوم بدن إلا بقولي أفرت ميلها ساعة أقوم بدن بقولي أفرتن إلا بقولي أفرت ميلها ساعة أقوم بدن بقولي أفرتن كا waxaa loo qaybinayaa sida hore idinku sheegay 160 ama 160 baa loo qaybinayaa waaye qaalmahan iyaguna ka dambeeya qaalintan cad qaalintan hadda iga dambeysay waa saa sheegay way qaalintan hadda iga dambeysay saaqal hore soo dhaqaaji hadda qaalintan waa qaalmaha ugu roon qaalmaha hadda la gadanayo waliba dhaban kale saa sheegay ilaa 110 ka way noqonaysaa ilaa 110 kun oo Ethiopian way noqonaysaa waa shir weey waa geela u qiimo roon bay kamid tahay waaye dhaban kale tukala iyadana halkan ka muuqata oo yar saa soo yar kaxeed qaalintan yar ee hadda qaalintan yar ee madow ee hadda ka dambaysa iyaduna waa qiimaheedu waa intee ugu badnaa waa ilaa 80 kun to qaalintan ma badnaanaysa qiimaheedu saa ugu badnaa waa siyaabaha farjid galahan weeye laakiin se waa laga qorroon yahay 80 kun waxay noqonaysaa markaa $500 wey waa $500 lacag badan ma ah ibraahim aad baad u mahadsan tahay walaal sida quruxda baneed saylada warkeeda nooga dhargisay aad iyo aad baad u mahadsan tahay nimankeena dibadda jira waxaan leeyahay dalka wax ku soo taro oo soo qarameeya ganacsiga dibadaha gelinaysaan dalkiina soo geliya waa sax ibraahim qofkii dibadda jiray ee Mareykanka jiray haddii uu lacag idin soo dirsado adiga hadda sida ibraahim oo kala uu ku yiraahdo qaalma iigad ma u gadi kartaa qofkii qaalmaha ka hayn lahaa iyo kii hayn lahaana ma u heli kartaa intaba waa loo helayaa intaba waa shaqaale shaqan baa waxan lacag ma xukun waad maqlaysaan qolyihiina qurba joogtaa geela jeclaa ay wareeriyay geela haddaad rabtaan waa la idin gadi walibana shaqaale la idinku dhiibi idinku lacagtiin baa soo dirsanaysaan ibraahim cabdullaahi maxaan ku dhahaayay rag badan oo la mid ah oo ka shaqeeya halkan oo odayaal ah ayaa hawsha idin fududayn doona haddii idinku yaan idin wayn labada nin baad garanaysaan waa labadii nin ee waraysiga isaga dambeeyey waraysiyadii hadda aan ka qaaday saylada haddana waxbay kala gadanayaan arigana hadda gaday arigana hadda gadaydaha waa wanan 8,400 8,400 baa la siiyey idahan 8,400 oo riyaal weeyaan intaa bal waxaad u qaybisaan 160 ama 160 wixii dollar ay ku noqonayso saas isku ogaanaysaan weli waxaynu ku guda jiraa sayladii qabri dahar khiyaaray sayladda haddee arina waa joogaa arigii kala yaryar oo kala waaweyn baa jooga wanankani waa wanankii 80 kun la siiyey orgidanina waa orgida dhexe orgidana waa orgida dhexe soo maaha qola kale ka waaweyn baa jirta hal qola ka waaweyn oo arig sogobka la yiraahdo ka weyn waa saa qiimahoodu waa imisa
أربعة ويديرنا أربعة قيمها وش أغنك أربعة أورجين أورجين بالكشة كقيمة ليه تمام كونوا إثيوبيان شان يتوان مال سينية $100 واحد يردم من واي $100 مشان يتوان ما ليه يتوان ما أنت مريس ما والله يتوان بوش على كتشوجا $100 قورما bishii hore iska daa maanta bishii hore ma dhawe maanta wuxuu marayaa 16 arigan marka waxa weeye waa $100 wax yar dhiman ka buuxa suuq baan u laanahay buuxa wax suuq nagu sameeyaa quraan meel noorgameed Itoobiya waxa nooga keento lacag nooga keento meelihii kale xuduudina wax noo yimaada ma jiraan anigu ka buuxa suuq baan haysanin waxaad ka warantaa orgidankada ninkii gata ee lacag intuu soo dirsado loo gado inta leeg buu ka faa'iidayaa markuu geeyo shirkadda shirkaduhu waa kala laba كذا أنا وابني هذا سيدا بدو كله سيدا بوساسو كليه سيدا maxay ahayd burco kaliya burbiyo kaliya waxbu ka faa'iido haduu se wax ka faa'iido $1 baa laga siiyaa halkaan waxa laga siiyaa Itoobiya bir oo aan waxba qabanin $1 kaas raashin la soo siiyo lacag oo badan laga faa'iido sidaas laga faa'iidaa marka waxa laga yaabaa $100 inuu u dhalo $30 ama $50 inta laga yaabaa oo $1 laga faa'iidaa waxba laga faa'iidaa asagoon welibana aan meelo badan sii marmarin oo aan daahin oo aan daajininba walaal ariga la daajiyo noocan ma waa gartay ariga yarka la daajiyo kan nooc baan dalaa markaa gaariga wala saaraan maanta ka gadan markuu luurka buuxiyo barigu gaariga saari oo xagu u geyn markaa ma boosaasu geyn burca la geeyaa oo waxa la geeyaa boosaasa la geeyaa baaburku muxuu ka qaadanayaa ariga baaburkan qaadaya asagoo $6 qaatay ugu dambeysay على نافك $6 buu ka qaaday marka qiimihii aan sheegnay baa $6 lagu darayaa iyo waliba lacag kale oo limaad leeyahay cashuur leeyahay waxba lagu daray adu total $100 buu isku tagayaa marka intii yarada ka dhimanay halkaas yaa ka buuxsamaysaa xaga markuu geeyana boqolkii waxa u fuulaysa ilaa $150 $150 uu siiyo oo $1 uu siisto ari lacag waa Itoobiya inuu ka faa'iido laga yaabo laakiin suuq ilaa hadda anagu suuq ma hayo waa faa'iido weyn way waad maqlaysaan khiyaaray ariga ninkii gadanaya intuu iibsado oo qabridaar ka gato magaalada qabridaar weeye meeshan aan joognaa ninkii intuu qabridaar ka gato oo hore gaari ka saaro boosaaso geeyo $50 baa ugu jira calaaneef calaaneef intaas ku jirta waa ganacsi fiican weeye ganacsi aad u qiimo badan weeye ganacsi aad fiican oo chance loo helo weeyaan oo qabridaar ari ka raqiisan ma jiraan wadanka waad mahadsantahay halkan geel baa lagu soo daray geel kala asna yimid oo aan sawirka ku jirin hadaay irtigana ka midaysna irtigana sidoo kale waa irti baarqaba irti kala kurska ka cunay oo nag ka dhigay ka irti baa kurska soo cunay ما كتبت ما كتبت فير كل شيء ناف مركز صبرس ناف الناف كله بنيه في عينه او كاسه دور تلقي اختين وارتي قرعيله وسبار قبص عن وين لكن قال لي قانو قرنها وعيب ورتين ليه ما جرت ويرلف قاميه مويه ان حاول دال لما دهن مغاسنا halkan riti oday abaa jooga oo ka muuqda wuu qooqan yahay
hilib la loo keenay hilib le waa la qali rabaa isaga iyo hashan kale iyo geelin waa geela 120 ka la siinayo 120 kun waa hilib le wax dhaqaala maanta waxaa jooga qaalintan oo 100 kun maraysa ama 600 iyo $87 iyo qaalintan yarta oo iyaduna waxba ka yaraanaynin wax badan ka yaraanaynin 500 baan ka dhignay qaalintan qiimaheeda iyadana halka waxaan ugu soo gabagaboobay sayladii qabri dahar iyo waraysigeedii khaaray aad iyo aad baad mahadsantihiin halkani waa airportkii magaalada qabri dahar maanta halkan waxaan ka qaadaynaa wiil aan adeero ahay iyo reerkiisii oo ka yimid cariga ingiriiska diyaaraddii hadda way soo dhowdahay mar dhow baanu leenahay insha allah adqaadaan wejiga hore airportka waa sidan halkan bajaajtii baa taxan waad aragtaan dadka maaragtay diyaaradda la socday qaadaysaa raggan aan isla soconnaa ninkan waa sheekh cabdiraxmaan oo teleefon ku hadlaya ninkan awogu baanu ahay isaguna uu nala qaadahayaa Sorry.